السلام عليكم maanta insha Allah waxaan sii wadi doonaa qaybta saddexaad dabeecooyinka ilmaha aan ka hadlayna sagaalka dabeecad maanta qaybta aan ka hadlayna waxaa waaye kala duwanaashada ilmaha dhanka falcelinta mise reactionka ay ka bixinayaan markay ay xanaaqaan mise ay faraxsan yihiin ilmaha way ku kala duwan yihiin cunugna waxaa waaye ilmaha ay ku badan tahay intensity of reaction waxaa waaye mise falcelinta oo emotionka waxaa waaye usually markay xanaaqaan wax yaray horta ka xanaaqaan ilmahaas markay xanaaqaan oo hin zaa'id ah oo hin xoog ah cod dheer ah ay badanaa ay use gareeyaan oo intaasoo marka ay sometimes waalidiinta ay isdhahaan cunuga maxaa lagu sameeyey majug zaa'id maa gaartay mise xanuun zaa'id ma u qabaa marka afiirsan waxaa laga yaabaa cunuga inuu waxsaas lagu sameynin wax yar oo dhibsaday laakiin oo hinta oo bixinaya iyo waxyaabaha oo realityga oo wixii meesha ka dhacay badanaa isma lahan asaga emotionkiisa aad u muujinaa taasoo more intense ah oo more zaa'id ah dan ilmaha kaleeta cunugaas marka uu xanaaqsan yahay xanaaqaas oo galana badanaa waxaa waaye xanaaqiisa haddaana la dhexgelin oona laga caawin iyuu wuxuu isku bedeli karaa xanaaqa levelkiisa xanaaq zaa'id uu sii naqon karaa xanaaqaas oo markuu sii zaa'ida marka ay keenaya cunuga inuu ilmaha kale uu wax ku dhufto mise inuu xataa qaniinye keeno mise inuu aggressive noqdo oo damage kaleeto oo kaas gareeyo oo wax alaabta wax guriga wax tuuro mise waxyaabo adiga oo damage keeni kara inuu sameeyo marka taasaa xanaaqiiska isma controli karo markuu xanaaqo badanaa sida ilmaha kaleeta ah ilmahaas markay waxaa kaloo laga yaabaa zawaalid ilmahaas markaa meel ay ku raacaan banaanka in ilmahaas markay habi yihiin codkooda uu loud yahay usually markay habi yihiin marka kaleetaba codkooda loud waaye waxaa waaye markay waxyar ay dhibsadaanna way xanaaqayaan way oynayaan banaanka xataa haday joogaan ma kala jeclo dadka qof u jeedo iyo meeshay ku jiraan waxaa leey muhiim u ah iyaga emotionka markaas ay dareemayaan lay respond garayaan taasoo marka ay u keeni karta waalidiinta ixraaj mise embarrassment ku sameyn karta markay banaanka joogaan mise in front of others ilaa cuniga respondigoo bixinaya intense waaye meltdown uu sameyn karaa oo taas laga wada cuniga in the middle of the mall waxaa laga yaabaa cunugii inuu hin galo oo dhulka isku garaaco oo waalidkii marka uu dareemo xishood geliyo oo ilmahaas marka waxay u baahan yihiin waan ka hadlaynaa biiznaa laakiin waxaan ka hadlaa qaybta kale ilmaha ay marka ay ku yar tahay reactionka oo intensityga filcilinta ilmaha ay ku yar tahay waxaa waaye badanaa ma muujiyaan xanaaqooda way xanaaqaan sida kuwa kaleetaba laakiin badanaa ma muujiyaan masu waxyaal kuluu yaraa lagu kasi karaa xanaaqooda laakiin badanaa dadka dhan ma fahmayaan qofkaan u fiirsan ma fahmi karo xanaaqooda mise farxadooda zaa'idka ah labadaba ma muujiyaan mar walbaba waa iska caadi ilmahaas waxaa waaye waxay marka ay dib u keeni kartaa ilmahaas inaan la maqlin mise inaan xanaaqooda la tixgelin mise inaan laga warqabin cuniga emotionkiisa maadaama uuna physically expressionkiisana ay zaa'id ayna ahayn oona loo arkaynin oo codna oona u sameynaynin oo hin zaa'id oona badan aan isticmaalaynin cunigaas marka cunigaas marka uu group ku jiray waxaa laga yaabaa in groupka aan markuu xanaaqsado wax ka xanaaqo uu asaga laysii keedsado oona muujin oo dadkeena u sheegin oona la fahmin oo loo maray cuniga inuu habi iska yahay taasoo cuniga marka u keeni karta inuu dareemo unheard inaana maqlin same thing in guriga xataa uu ku dareemo waalidiinta inayna maqlin oo la tixgelin mise inuu xanaaqiisa la keergaraynin laakiin asagii ma muujisanayo waalidiintii kama warqabaan asna wuxuu u maleeyaa in loo jeedo laakiin aan responda la siinoonin mise la tixgelinoonin taasoo marka ay problemo keeni karto cunigaas in oonu dareemo in la maqlin unheard uu yahay so emotionka labadan cuniga oo emotionka also ay low ku tahay reactionka waxaa laga yaabaa cunigaas marka hadiye usoo gadid gift inuuna habi zaa'ida wejigiisa ka muujinin oo mise oo excitement cuniga kale u farxi lahaa mise oo ordo maanta dhan inuu cunigan reaction zaa'id ka bixin oo thank you dhahow hore u socdo taasoo marka ay keeni karta waalidiinta marka especially iyagana ay u arkaan sometimes cunigan maxaa waa cunug oon waxba kala jecleen waa mise cuniganayto he doesn't appreciate wixii loo soo gado hore oo iskaga socdaa cunigan ayna dareemin ay dhib ku noqoto waxaa cunigan reaction zaa'idan ka bixina waxa loo soo gado hore oo iskaga qaadanayo mise farxadiisa aadi aan u muujinaynin so marka cunigeena wuu farxsan yahay laakiin farxadiisa muujinta levelkiisa saas iska naturally waa dabeecad
so cunugaas marka wuxuu u baahan yahay in lagu caawiyo inuu fahmo expressionkiisa, because cunugaas sometimes also waxaa dhib ku noqonaysa markuu meel waalidiintiisa u raaco mise markuu kaligiis yahay dad kaleeto arko inuu dadka kale kusoo ordo mise inuu dadka qaraabadiisa oo happy expression tusiyo dadku inuu happy ku yahay aragtidooda oo salaamo. badan waxaa laga yaabaa cunugaas inuu hore u socdo markuu qof arko oonu sii salaamin mise inuuna expression oo excitement tusinin. qof waqti badan ugu dambeysa u arkaa ma sii excitement ma tusinayo, waxaa laga yaabaa inuu salaamo oo hore uga sii socdo. so kaasna sometimes cunug wuxuu u keeni kartaa especially xoogaa markuu soo roonaado awkward social gathering, marka meelaha ay normiga waxyaabaha normiga behaviorka cuniga looga baahan yahay inuu awkwardness u keento oo waxyaaba meelaha qaar oo dareemay in ficligiisa iyo wixii laga rabay aan isku mid aan ahayn. marka waxaa muhiim ah in waalidiinta ay ku caawiyaan in ay baraan what is norm, maxaa expectation laga rabaa markaa family memberka aragtida oo kaleeto what you doing, qof waalidka oo kale markaa aragtida se ugu muujinaya inaa habi ku tahay, inaa ku faraxsan tahay aragtidooda, se u salaamaysaa. waxyaabahaasoo kale lagu caawiyo cunugaas u fahmo soo u salaami lahaa dadka mise soo u muujin lahaa habinimadiisa emotionkiisa. iyo markuu xanaaqsan yahay same thing in la baro inuu muhiim tahay xanaaqiisu inuu muujiyo si loo caawiyo, in la baro inuu hinta okay tahay because hinta waxaa sign oo lagugu dareemi karo inaa caawitaan u baahan tahay. in emotionkiisa ereyada emotionka descriptionka emotionka in la baro oo leveladay kala yihiin oo expression sameeyo cunuga story loo akhriyo oo la dhaho cunuga maxaa u malaynaa qofka storyga muxuu dareemaya qof characterka story ku jiray happy mu ahaa mise sad u ahaa, what do you think, describe his feelings. so more feelingka oo describe gareeyo so u barto si feelingka what is feelings and how to express, so u sharxi lahaa oo uga hadli lahaa feelingkiisa. marka cunugaas badanaa maadaama uu wixiisa oo keedsado waxaa muhiim ah cunugaas in waqti oo check in loo sameeyo oo lagu jakaray emotionkiisa oo laga warqabo, because ma la rabo cunugaas in taraakum sii sameeyo emotionkiisu sii keedsado oo la process garaynin oo isagana caawitaan u helin, taasoo marka keeni karta markuu weynaado in mental health struggles u imaato mise oo sii dareemo inuuna usually always baba unheard oo ahaa weligiisaba la maqlinoona oo emotionkiisa muhiim ahayn. cuniga kaleeto markaan usoo baxno oo emotionka uu ku badan tahay oo falcelinta oo xanaaqa iyo farxadda ay ku badan tahay, cunigaasna waxaa muhiim ah in cunigaas badanaa waxaa muhiim ah in loo ogolaado inay okay tahay oo hinta in la ooyo, in reactionkiisa normal looga dhigo, because cunigaas wuxuu dareemaya in ilmaha kale uu different ka yahay. in mar walba uu oyna ilmaha way isfahmayaan especially xoogaa markay soo roonaadaan wuxuu ku leeyahay aniga waayo aniga le mar walba u ooya mise waayo waxaa laga yaaba inuu ku dhaco cuniga and mise dadka kale dhahaan maxaa baby cry baby baa tahay in la dhaho oo lagu dhiga hadlaa laga yaaba. so cunigaas wuxuu u baahan yahay in la dareensiyo inuuna cry baby ahayn oo emotionkiisa beautiful tahay, acceptable tahay, oo la baro markas emotionkiisa uu process gareyn lahaa. so wuxuu ku sameyn lahaa emotionkiisa marka uu dareemo xanaaq, levelada xanaaqa ay kala leedahay. xanaaqa levelooyin uu kala leeyahay. levelka koowaad markaa joogtid intaa levelka kala aadin oo xanaaqaada zaa'id naqanin maxaa sameynaysaa in laga sii hadlo oo wuxuu u baahan yahay cunigaas oo lasii baro wixii uu ku sameyn lahaa xanaaqiisa markuu xanaaq imaado iyo xanaaqa levelo inay u kala baxaan. oo xanaaq zaa'id leh markasta aadan muujin laakiin xanaaqaagi maybe slow waay hase u muujinaya markuu xanaaqaagi uu yaryahay, markuu xanaaqaagi badan yahayna se u muujinaysaa sida lagu ogaado levelka aa markaas joogtid. emotion expression in la baro, emotional intelligence in la baro cunigaas, processing cunigaas wuxuu u baahan yahay in la baro emotionkiisa inuu process garayo. cunigaas also wuxuu u baahan yahay validation in loo valid gareeyo soo hadda ka hadalnay in la dhaho it's beautiful why, it's acceptable why, in la dareensiiyo in la maqlooyo emotionkiisa la dareemooyo. marka cunigaas badanaa xoogaha waalidiinta dhibay ku tahay ila maadaama oohintiisa ay badan tahay maantana cunugu kugu soo ordaa waxaa laga yaaba waalidka inuu maamada inay mashquul ka tahay busy ka tahay ayna mar walba attend gareyn karin emotionkiisa.
marka muhiim waa cunugaas in schedule-ka flexible laga dhigin qofkii og maadaama ogtahay cunug oo emotionkiisa high inaa qabtid inaa xoogaha flexible ahaatid oo cunugaas marka u aragtid this is the time oo cunugaa ii baahan yahay haddaan emotionkan hadda aan ka caawinin hadhow dhib ay u keeni kartaa marka u weynaado waa inaa aan emotionkiisa u arkaa wax muhiim ah aatan degreyn karaa inaan dhihin cunugan maanta dhan waa oynaysaa cunug hintiinow haddaa ka weynaa uhin baby matid oo kale la dhihin ilmaha eryada la dhahayo la ogaado oo cunugaas time la siiyo emotionkiisa ku process garay insha Allah waxyaabo badan oo emotional intelligence-ga aan rabaa inaan ka hadlo because badanaa emotional intelligence saa shay muhiim waa ilmaha inay bartaan sida emotionkooda waxa badanaa dadka mental health-ga struggle u keena markay weynaadaan waa emotional ilmaha markay yaryihiin aan lagu caawin oona la process garaynin mise ayna iyaga naftirkooda ay baran waxay ku sameyn lahaayeen emotionkooda taasoo marka u keento markay adult noqdaan ay qof weyn noqdaan inay emotion waxyaabihii yaraantooda damage kusoo gaarin ay soo baxdo as an adult ay dhib ku noqoto how to handle or process their emotions insha Allah marka taasaa xooga saari doonaa emotional intelligence-ga marka aan 9-kaan dhamayno in the future insha Allah laakiin next video waxaan sii wadaynaa dabciga afraad biisnana soo dhawaada nala socda videogan haddaa wax ka faa'iiday please mise u malaynay waalid inuu caawi karo please la share garay dadka thank you so much jazakumullah khair assalamu